wasiirka warfaafinta Somaliland oo maanta ka qayb galay kulan sanadeedka wariyaasha Royal TV ee ka howlgala gobolada Somaliland oo lagu qabtay magaalada Hargeysa xaflad lagu furayay sanad dugsiyeedka Salaama oo lagu qabtay magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland maareeyaha wakaalada biyaha Hargeysa oo ay weheliyaan gudda hoosaadka arrimaha bulshada golaha wakiilada Somaliland oo maanta soo kormeeray arrimaha lagu baaxdeynayo magaalada Hargeysa معهد فافنتا دينتا إسلامka oo muxaadaro wacyigelin ah ku qabtay magaalada Gabiley 10 arday ee kaalmaha hore ka galay dugsiyada gobolka Sool oo hay'adda kaar guddoonsiisay abaalmarino ay ugu tala gashay kulan looga hadlayay sidii loo dhisi lahaa waddo isku xirta gobolka Sanaag oo maanta ka dhacday guriga maamulka gobolka Bari madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Gaas oo maanta soo kormeeray wadooyin laga hirgelinayo magaalada Galkacyo iyo wararkii ugu dambeeyay ee waddankani Britain qodobada ah iyo qodobo kale ayaa daawadayaal ku daawan doontaan wararkeena u diyaar garooba qadar yar waxay isii kadib السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال وعن أو وناكسان ميل بقى جوكتان كنا سودوادا وركي رويال تي في أو حلقاني 6 صديقي مانيا استوديوها aynu ku leenahay galbeedka magaalada London madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Gaas ayaa maanta kormeer ku soo maray wadooyin laga hirgelinayo magaalada Galkacyo oo dhismooyin ay ka soconayeen iyo waliba suuqa weyn ee Dayax wariyaheena Xanad Maxamed Muuse ayaa warbixintan ka soo diray Galkacyo madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ay weheliyaan maamulka gobolka Mudug kan degmada Galkacyo xildhibaano iyo wasiirka howlaha guud ee Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi iyo agaasimaha wadooyinka Puntland Maxamuud Cabdinuur Aadan ayaa maanta kormeeray goobihii Galkacyo laga burburiyay dhismayaashii sharci darrada ahaa iyo waliba guryihii dawladda ee la baneeyay iyo meelaha hadda dhismayaal ay dawladdu ka wado sida bangigii hore ee qudaarta oo hadda dhismo ka socda loona diyaarinayo saldhig booliis iyo waliba madaxtooyada cusub ee laga dhisayo bartamaha magaalada Galkacyo madaxweynaha dawladda Puntland ayaa soo indheeyay dhammaan goobahaas waxa uu ku soo arkay sida ay u socdaan shaqooyinka laga helay shaqooyinka laga hayo iyo isbedelka magaalada ka hirgalay waxa uu bogaadiyay sida wax u socdaan iyo wajiga cusub ee magaalada Galkacyo ay yeelatay muddadii uu joogay madaxweynuhu waxaana hadaladiisii kamid ahaa madaxweynaha Puntland وما سيهن نسيان aad baan u bogaadinayaa guddiga shaqadan haya runtii oo shaqo oo muhiim ah oo aad u dhib badan ilaa maalintii aan Galkacyo ku guda jiray kuna guuleystay wax badan ka qabta magaalada ama ha noqoto soo celintii hantidii yani dawladda ama ha noqoto qurxinta iyo bilicda magaalada hawshaasi oo runtii hawl dhib badan ahay laakiin aad moodo sida uu sheegay bislaanshaha dadka Galkacyo iyo Mudug ay suurto gelisay in dadku arkaan wanaaga ay hawshaas ku soo kordhinayso magaalada ama ha noqoto quruxdeedii ama ha noqoto taambalka ka soo baxsan magaalada hadda meesha aan taaganahay shaqada ka socota sababtoo waxa weeye magaalada rasan oo aad loo degay isku dhaxyaacana loo degay in hadda ka dambeeya magaalo ay yeelato laga soo baxo magaalada dhanka kale wasiirka howlaha guud ee Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi oo kormeerka ku weelanayay madaxweynaha ayaa isna ka hadlay goobta sida uu sheegay asibuhu wadooyinkii dibadda waxay marayaan 20 waxaana loo sii socdaa hadda gudaha laba meelood baa hawsha wadooyinku ka socotaa kontaroolka magaalada Galkacyo xagga looga aado shaqadiisa ka socota dhinaca magaalada meeshaan waxa ka socda tiim kale oo hawsha wada aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ujeedada hadalka dawladdu waxa weeye madaxweyne in magaalada wixii ka xumaaday laga sameyn karo wadooyin in la hagaajiyo wax badan waa ka qaban wax badan oo loo dhaweeyay wixii magaalada ka baxsan oo mustaqbalka ana in wada la'aan iyo dib dama ayaan ku dhicin magaalada Galkacyo guri kasta oo la dhisayo inuu wada helo ku filan oo qurux badan insha Allah mustaqbalka waxaan rajaynaynaa magaalada soo fiditaankeedu inuu magaalada qurux badan oo dambeyntii waxaa isna meesha ka hadlay agaasimaha wadooyinka Puntland ee BHA Maxamuud Cabdinuur Aadan waxaana isna hadaladiisii kamid ahaa waxaan farxad weyn noo ah maanta inaan soo booqdaan
guddiga uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Maxamed Cali Gaas iyo wasiirada iyo xildhibaanada odayaasha kale waxaan qabanay ilaa hadda inoo diyaar ah wadooyinkii qorsheynta magaalada town plan-ka ahaa oo controlka iyo hotel taxi u dhexeeyay oo dhinaca bariga ah iyo oo dhinaca waqooyiga ah galbeedka ah wada kastana ay tahay cabirkeedu yahay 12 mitir dhererkeedu yahay 1 mitir waxaan sabtida bilaabaynaa hadii Allah wada wadooyinka gudubka amadana madaxweyne waan jecelnahay muddo gaaban inaan soo gabagabayno maadaama qalabka cusub aan helnay hay'adda wadooyinka u yimid shaqaalihii shaqaynayay shaqadii isla jamaanay muddada gaaban kadibna inaan magaalada gudaheeda galno wadooyinka xirnaa furnaadii bisha inta ka hartay waxaan noo xanad maxamed muuse Royal TV gaalkacyo wasiirka warfaafinta Somaliland ayaa maanta ka qayb galay kulan sanadeedka wariyaasha Royal TV ee ka howlgala gobolada Somaliland kaasoo maanta ka dhacay magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland waxaana kulankan oo ahaa mid si weyn loo soo agaasimay looga hadlayay horumarinta wariyaasha Royal TV iyo waliba waxqabadka weyn ay ka geystaan gobolada Somaliland waxaana kulankaas oo ahaa mid shahaadooyin lagu guddoonsiiyay qaar ka mid ah wariyaasha Royal TV wariyahana Xamza ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Hargeysa shirweynihii sanadla ah ee shaqaalaha iyo madaxda telefishinka caalamiga Royal TV ayaa si toos ah uga furmay magaalada Hargeysa shirweynaha soo jeedadiisu sidii loo gorfay lahaa loona dardargelin lahaa shaqada TV-gaas Royal isaguna xog wareysan lahayn shaqaaluhu shaqada u hayaan TV-gaas shirweynaha soo ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse iyo badiba dhammaan agaasimayaasha TV-da madaxa bannaan ee ka howlgala Somaliland iyo qaar ka mid ah wariyaasha madaxa bannaan ee magaalada Hargeysa ugu horeyn waxa halkaas ka hadlay agaasimaha TV-ga Royal ee Somaliland Sheekh Ismaaciil waxaanu yiri yaasha telefishinada madaxa bannaan iyaguna waqtigooda noo soo huray ee nagala soo qayb galay kulankan sanadlaha ah ee telefishinka Royal qaybtiisa Somaliland ay wariyaashiisu isugu yimaadaan min Saylac ilaa Sanaag mar saddexaadka waxaan u mahadnaqayaa dhammaan wariyaasha iyagu waqtigoodii soo huray ee safarada dhaadheer soo galay ee ka soo qayb galay shirkani maanta noogu furmaya 17 bisha 9aad 2015 haddii aan warbixin guud idinka siiyo mudane wasiir kulankan oo kale waxaanu ku gorfaynaa oo ku qaada dhignaa sanadkiina soo dhaafay waxyaabihii aanu ku guul dareysanay iyo waxyaabihii aanan ku guul dareysanin ee aanu ku guuleysanay sida oo kalena waxa aanu ku gorfaynaa sanadka soo socda maxaa noo qorshe ah maxaanu qaban karnaa iyo maxaanu isbedel sameyn kareynaa sidoo kale waxa aanu ku gorfaynaa oo ku qaada dhignaa in aanu isxog wareysano xogaha gaarka ah ee telefishinka iyo walibana sidii uu telefishinku u horumarin lahaa iyo sidii aanu wada shaqeyn ballaaran la sameyn lahayn xukuumadda Somaliland sidoo kale waxaanu ku dhageysanaa xukuumadda maxay noo haysaa guulo oo ay oran karaan waxyaabaha wad ku talaabsateen maxay talooyin noo soo jeedin kartaa oo ay oran kartaa waxyaabahaas waxa weeyaan inaad TV-ga ku soo kordhisaan baa la idinka baahan yahay waxa kale oo dhageysanaa oo farxadna oo inaanu agaasimayaasha ka soo qayb galino oo aanu iyaga dhankooda dhageysano maxay talooyin ugu soo kordhin karaan maadaama telefishin madax bannaan aanu nahay inaanu iskaashano inaanu isxog wareysano taas ayaa iyadana farxad noo ah shirku markuu noo dhamaadana iyo furitaanku markuu noo dhamaado waxa aanu sameyn doonaa xog wareysi gaar ah oo wariyaasha codkooda laftirkooda aan dhageysano intaasi kadib waxa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse isaguna telefishinka Royal ku bogaadiyay kulankaas uu qabtay shaqaalihiisa uguna hambaliyay maamulka TV-ga Royal inay kulankan oo sanadla ah sida ay sheegeen qabsadaan oo ay noqdaan TV isu yimaada sanadkii mar in haddii awoodda dhaqaale u saamaxdo ay ka badiyaanna ay ka sii fiican tahay oo ragga gobollada u jooga iyo ragga xarunta jooga ay isu yimaadaan oo ay xisaabtamaan oo dhinacyada tirada badan leh ay ka xisaabtamaan iyo hawsha uu qofku hayo wuxuu khalad galay iyo wuxuu guul keenay iyo wuxuu lib soo hooyey iyo wixii loo dirtay sida uu uga soo baxay iyo wuxuu sumcad u soo kordhiyay TV-ga ama sumcad darro u soo jiiday inuu intaasi laga xisaabtamaa arrin muhiim ah weey macnaha in la is update gareeyo
siyaasadda lagu shaqeynayo laga wada hadlo waxa lagu wada shaqeynayo iyo barnaamijka iyo istaraatiijiga TV-gu wixsanayana laga wada hadlo oo aanay iska noqonin habaqle iyo maalinta maxaa kolayga ku soo dhacay maxaa salada ku soo dhacay inaan la orane in la yiraahdo la yaqaano sida ay wax noqonayaan la sii yaqaano way jiraan rag fara badan oo dhalinyaro ah oo aan ku kalsoonahay inay soo baxayaan oo mustaqbalka ay noqon doonaan wariyayaal waaweyn oo caan ah. dhanka kale waxa iyaguna halkaas hadallo weyn iyo go'aabo mahadnaq u badnaa ka jeediyay agaasimeyaasha TV-yada madaxa banaan waxaana hadalladooda ka mid ahaa qayb qaataan guud ahaan warbaahinta Soomaalida wararkooda iyo barnaamijyadooda waa qaartaysan haddaan la isxaasidin waxaan halkan jeclaan ugu hambaleeyay markii ugu horeysay oo fursadii Yaxya Sheekh Ismaaciil oo Soomaaliland si fiican u hormariyay waxaan kaloo jeclahay inaan mahadnaq gaar ah aan siiyo Faysal FIFA oo inta badan wararka ka dhacay Soomaaliland si Hargeysa door muhiim ah ku ciyaara saaxiibka door margaaro inaad ku hambaleysaa muhiim ah waxaan leeyahay FIFA hambaliyo Yaxyana alla kaftay maalmihii ugu dambeeyay waxa uu bilaabay barnaamijyo fiican iyo wareysiyo fiican oo iyagu laftigooda bulshada saameyn ku yeeshay waxaan jeclahay maamusan bahdiina Royal TV waxaan guud ahaan ku amaanayaa wariyaasha Royal TV ee halkan ka soo qayb galay xafladda ee gobolada fogfog ka yimi anigoon kala qaadaynin dhammaantiinba waxaan ku amaanayaa sida shabakadeed isugu xidhan tihiin ee u wada shaqeynaysaan ee isugu duuban tihiin waxaan si gaar ah u hambaleynayaa Xamse Yaxya Sheekh oo agaasimihiinniya oo xafladdan nagu soo casuumay dhammaantiinna waan idin salaamayaa waxaan leeyahay wad mahadsantihiin kulli goor gaaban erigeedna gaaban intaas ayaan idinku amaanayaa mahadsantihiin dhammaan baaweynta Royal TV ugu horeeya agaasimaha guud Yaxya Sheekh Ismaaciil iyo halwadeennada waan salaamayaa waxaan leeyahay sharaf ay noo tahay annaka ka warbaahin ahaan iyo ka maamul ahaan baynu ka soo qayb galno munaasabad noocan oo kala ah oo ay ka soo qayb galeen dhammaan wariyaasha baaweynta Royal TV runtii annaka Somali News aan waan idinkaga dayan doonaa maanta waxaan noo tahay wax badan inaan kororsanay doorka Royal ahaana runtii barnaamijyada iyo wararkiisa waa kuwa dhexdhexaada waa kuwa dadku ay ku xidhan yihiin halka dadaalka si wada ay isdhiganina aanu inoodan lahaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi runtii waxaan u arkayaa intan iyaga guul u tahay inay iswareystaan inay isxaal ogaadaan inay isdhiirigeliyaan oo qofka wax qabta uu Yaxya Sheekh Ismaaciil iyo maamulka Royal TV ay dhiirigeliyaan Yaxya qudhiisa ayaan ku dhiirigelinaynaa doorka firfircoon ee uu ku leeyahay warbaahinta Soomaaliland telefishinka Royal TV amaan badan u soo jeedin maayo waxa uu la mid yahay TV-yada Soomaalida dhammaanteedna waxay u baahanahay haddii Somali Cable maanta cusub yahay iyo haddii kuwa naga horeeyay yihiinba dhammaanteed waxay u baahan yihiin in qaabka yihiin wax badan ay ka bedelaan in arrimaha ijtimaaciga iyo arrimaha bulshada ay wax badan ka taraan TV-ga Royal ayaa ka mid ah TV-yada ku hadla afka Soomaaliga ee ka howlgala dacalada adduunka ayaa waxa uu noqonayaa TV-ga ugu horeeya isku keenay wariyaasha ka howlgala iyadoo ujeedadoodu tahay si loo dardargelin lahaa looguna hambaliyeeyo shaqada wanaagsan ee hayaan TV-gaasi iyadoo sidoo kale xusud mudan intii lagu guda jiray xafladaasi wasiirka warfaafinta Mudane Cukuse Saxada Sharaf iyo guddoonsiye qaar ka mid ah shaqaalaha TV-gaasi oo ku mutaystay shaqo wanaag karti iyo dadaalka wanaagsan ee ay hayaan TV-ga Royal Xamse Axmed Ismaaciil Xamse Sabri TV-ga caalamiga Royal magaalada Hargeysa maarayaha wakaalada biyaha Hargeysa oo ay weheliyaan guddi hoosaadka arrimaha bulshada ee golaha wakiilada Somaliland ayaa maanta kormeer ku soo maray mashruucyo lagu baaxideynayo magaalada Hargeysa wariyaheena Faysal FIFA ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa maarayaha wakaalada biyaha magaalada Hargeysa Ibrahim Siad Yunis oo weliyaan xubno kamid ah guddi hoosaadka arrimaha bulshada ee golaha wakiilada Somaliland ayaa saaka kormeer ku soo maray halka uu marayo mashruuca biyo balaarinta caasimadda Hargeysa ee muddooyinka ugu dambeeyay hirgelintiisa ay gacanta ku haysay isla markaana ku hawlanaayeen mas'uuliyiinta wakaalada biyaha magaalada Hargeysa xilligii ay mas'uuliyiintani goobta booqdeen ay waxa si mugleel looga dhexdhexan karay goobtaasi shaqaale tiro badan oo ka tirsan wakaalada biyaha oo ku hawlana qoditaanka dhulka iyo sidoo kale dhigitaanka beebka dheer ee lagu wado in la soo gaarsiiyo magaalada Hargeysa ugu horeyn waxa goobtaasi warbaahinta kula hadlay isla markaana xildhibaanada dhankooda faahfaahin ka siiyay halka mashruucu u marayo iyo sidoo kale halka ay ka soo bilaabeen maarayaha wakaalada biyaha magaalada Hargeysa Injineer Ibrahim Siad Yunis isagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu dhisaatan wax maanta noo sharaf ah wakaalada biyaha inay soo boqdeen guddiga arrimaha bulshada golaha wakiilada
oo 3 xildhibaan oo kamid ah gudoomiye ku-xigeenkii xubin guddiga kamid ah halkan la joogaan iyagoo soo indheynaya sida mashruuca biyo balaarinta caasimadda Hargeysa u socdo xafiiskii nagu yimaadeen saaka warbixin baan siinay wakaaladii soo shaqeysay mashaariicda ka socda kadibna waxaan soo booqnay site-kii halkii qalabkii alaabtu taalay imika waxaan joognaa tiimkii koobaad ee crewgii koobaad ee ka shaqeynaya beebka dhigistiisu halkay taagnanayeen ilaa imika halkay u marayeen ilaa maantana waxa la dhigay 2 kiiloomitir iyo 200 mitir bay beebkiisa dhamaaday waana hal crew baa dhigaynta sabtana waxaanu bilaabaynaa crewgii labaad ama tiimkii labaad ee hawsha bilaabay oo ka bilaabi doona laagta shideeda iyo crewga saddexaad oo isaguna wiiga dama bilaabi doona biyashina ka bilaabi doona hoos u jeedin doona ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa hawshaas noo dhamaato hawsha si fiican bay u socotaa ilaa imika waxa caqabado naga horyeeyay ma jirto aadna waanu maqnaa xildhibaanada waayo shaqadoodii koobaad bay kamid tahay inay eegaan dadweynihii loo soo doortay mashaariicda u socota mashruucana waa mashruuc aad u ballaaran oo Hargeysa dhami sugayso ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa mashruuca ilaahay nagu guuleeyo inuu dhammaystiro hawshiisa ku soo dhaw xildhibaan sidoo kale waxay isaguna dhankiisa goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha guddi hoosaadka arrimaha bulshada ee golaha wakiilada xildhibaan xasan cawaale caynaan isaguna dhankiisa uga mahadceliyay mas'uuliyiinta wakaalada hawsha shaqo ee baaxadeeda leh ee ku fogan yihiin sidii ay bulshada u soo gaarsiin lahaayeen biyo ku filan sharaf leh oo maamuus leh noo soo dhaweeyay maareeyaha guud ee markaa wakaalada biyaha runtii wuxuuna soo mariyay goobo badan ayuuna soo mariyay oo markaasi biyo dhigista wuxuuna soo mariyay halka ay yaalaan qaybta markaasi qalabkii uuna soo mariyay oo uuna soo eegnay wuxuuna soo mariyay goobihii la dhigayay oo inta badan imika la soo dhigay ayaanu soo marnay oo imika hadda dul taaganahay iyadoo la dhigayo shaqaale fara badanna ay ka shaqeynayaan runtii aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa maareeyaha sida fiican ee uu noo soo hawlgeliyey ee uu noo soo tusay goobaha ay biyaha iyo ay marayaan waxaan rajaynayaa markaasi inay magaalada Hargeysa ay labada gacmood ku wada maydhan doonto bari galbeed koonfur waqooyi eeriyada ay ka kooban tahay magaalo madaxda jamhuuriyadda Soomaaliland loogu shukriyo waxa qabadkan aad ka qiimaha badan ee uu natusayo maareeyaha biyaha isagana waxaan leenahay jazakallahu khayr waana wax aad iyo aad loogu farxo waana ballamihii ay xisbiga kulmiye galay ee uu hogaaminayo madaxweynaha Axmed Maxamed Siraanyo waa guulaha ilaahay sakhiray ee markuu qofka bilaadan ku dadaalo in ummadiisa wax u qabto uu raad fiican ka tago allana wax walba u fududeeyaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ina wax qabad fiican oo qiimo leh oo magaaladii caasimadii dalka iyadoo ah wadnihii dalka ah ay biyihii maanta inay wada gaaraan qarka u saaran yihiin muddo dhow hadduu ilaahay ka dhigo oo baahida biyuhu waa nolosha koowaad ee bini aadanka ayay ka mid tahay alxamdulillah weeyaan taasoo wada kaafida magaaladiisa uu gudoomiye noo sheegay maareeyuhu oo xafiiskiisa markaan isku xog wareysanay rajo aad iyo aad u fiican oo dhawaan la filayo hadduu ilaahay ka dhigo in biyaha inteeda badan 7.8 ay ka qabeelayso iyadoo waafaqsan shaqadayada inaan soo kormeeray sida biyo gelintu Hargeysa ay uga socoto oo maanta waxa ugu baahi badan biyo Hargeysa weeye biyaha ugu baahi badan tahay waxaan rajaynaynaa sidii maanta dhaweyd madaxweynuhu sheegay 2016 in Hargeysa guri walba ay biyuhu gaari doonaan halkana beebkii meel wanaagsan buu maraya iyo shaqadii xaggaana wax ka soo socota anigu waxaan deganahay xaafadaha runtii biyuhu wali aan gaarin waxaan rajaynaynaa kuwa xagga ka soo socda iyo kuwa marka la isu geeyo labadaba in 2016 inay Hargeysa biyo wada gaari doonto waana kulleeba magaalada iyo marka laga baaxidaysa intaasi kadib waxay mas'uuliyiintani kormeer ku soo mareen goobta kaydka u ah mashruucani oo ay taxnaayeen qalab tiro badan oo loogu talagalay in lagaga howlgalo sidii biyo ku filan loo soo gaarsiin lahaa caasimadda Hargeysa muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa magaalada Hargeysa waxa ka taagnaa biyo la'aan baahsan taasi oo shacbigu si xoogan ay uga dayrinayeen xaaladda soo wajahday ee biyo la'aanta balse mashruucan ayaa la filayaa in bartamaha sanadka 2016 si rasmi loo soo gunaanado isla markaana lagaga baxo biyo la'aanta ka taagan magaalada Hargeysa hadiiba ay ku guuleystaan mas'uuliyiinta gacanta ku haya xilligan ee hormuudka ka yihiin mas'uuliyiinta wakaalada biyaha magaalada Hargeysa waa Faisal Maxamed Aadan Faisal Viva TV-ga caalamiga Royal magaalada Hargeysa kulan looga hadlaya sidii loo dhisi lahaa wada dheer ee isku xirta gobolka Sanaag ayaa maanta lagu qabtay magaalada Boosaaso wariyahana Cabdiqani Boos ayaa warbixintani inoo soo diray
kulankan ayaa ujeedkiisu ahaa sidii looga qayb qaadan lahaa wadada isku xidha Ceeldaahir iyo magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag. kulankan ayaa ka dhacay guriga maamulka gobolka Bari waxaana ka soo qayb galay maamulka gobolka Bari gudida loo xil saaray wadada isku xidha Ceeldaahir iyo Ceergaabo iyo maamulayaasha iskuulada Boosaaso. kulankan ayaa ugu horeyn waxa faahfaahin ka bixiyay gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhado. xarunta gobolka Bari shir isugu yimi dhammaan maamulayaasha dugsiyada degmada Boosaaso in maamulayaasha dugsiyada degmada Boosaaso iyo kuwa gobolka Bariba ay yara isa saareen qaaraan aan awal golayaashu ay saareen kaasoo ah in macalinku uu bixiyo $3 $2 maamuluhuna bixiyo $3 taasi waa guul anaga noo gaara gobol ahaan gobolka Bari iyadoo aan qoondaha marka horena ay madaxweynaha saarin golayaasha ay xukuumadda iyo kan xeerdejinta uusan iyaga wax gaarana saarin laakiin waxay ku tusaysaa damiirka wanaagsan ee dadnimo damiirka wanaagsan ee maamulnimo iyo macalinimo inay iyana ka qayb qaataan inay ardaydiina ka qaadaan maamulina $3 isa saaro macalinkana $3 uu isa saaro taa ilaaha baa maxaa abaalkooda gudaya annaga maamul gobol ahaana waxa weeye waa sharaf iyo karaamo ay noo soo hoyeen maamulayaashayadii iyo macallimiintayadii markii inay tii ardadana ballan qaadan iyana mid saaraan taasoo aan ugu faani doono gobollada kale ee dowladda Puntland waxa weeye waa arrin annaga noo gaaro gobolka Bari waxaan leeyahay gobollada kale ee Puntland macallimiinta iyo maamulayaashu ha ku daydeen macallimiinta iyo maamulayaasha gobolka Bari sidaas oo kale ay isu saareen $3 maamulaha dugsi kasta $2 macallin kasta ay isu saareen. gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga dowladda Puntland kana mid ah gudida loo xil saaray wadada isku xidha Ceeldaahir iyo Ceergaabo ayaa ku amaanay gudida waxbarashada ee Boosaaso sida weyn ay uga qayb qaadanayaan wadada isku xidha Ceeldaahir iyo Ceergaabo. bahda waxbarashadu waxay ahayd mid markasta u taagan inay kor u qaadis ku sameeyaan bulshadooda ha noqoto xagga dhaqanka ha noqoto xagga aqoonta iyo xagga diintaba waxayna maanta muujiyeen taas mid la mid ah inay arrintaas garab istaagaan waana ku faraxsanahay sida ay wanaagsan inay la shaqeeyaan waxay kaloo ku amaanan yihiin gudida waxbarashadu maamulka waxbarashada iyo maamulayaasha waxbarashaduba sida ay u dhiirigeliyeen barnaamijkan iyo sida ay fikradaha fiican oo waxqabadka iyo horumarka dalka ku saabsan ay noogu soo kordhiyeen waxay go'aamiyeen maadaama ay yihiin maamulayaasha iskuullada inay iyaguna ka qayb qaadan doonaan iyaga macallimiintooduba tabarucaadka wadada Ceeldaahir Ceergaabo. gudoomiyaha waxbarashada gobolka Bari Shamis Muuse ayaa cod dheer ku sheegtay in ay ka waxbarashahaan gobolka Bari ay ka qayb qaadanayaan isla markaasna markasta garab taagan yihiin sida ay wadadaasi u hirgelin waana ka qayb qaadanaynaa waana soo dhaweynaynaa waana uga mahad celinaynaa maamulayaasha gudiyada waxbarashada iyo waalidiinta kulli ku wada qanacsan inay ka qayb qaataan ee wadada Ceeldaahir Ceergaabo cid uma maqna ceelna uma qodna waxay ila tahay generationka hadeer soo baxaya iyagay anficaysaa wadadu dadka haddaan halkan joogana sababta ay hadeer aad iyo aad ugu adkaynayaan in hawsha la qabto hadda iyaga iska wuxuu qabso ku soo shaqeeyay dugsiyada Boosaaso ama guryaha Boosaaso ka dhisan badankood waxa lagu dhiskay iska wuxuu qabso ardaydii waagaas maxaan ku iraahdaa ka qayb qaadanaysana waa kuwa hadeer maamulayaasha ah waana sida ay u aqbaleen maantay inay iyagu xil isa saaraan inay iyagu lacag isa saaraan inay iyagu qaaraankii ka qayb qaataan inay ku taliyaan in markasta meesha ay marayso lala soo socodsiyo in xataa ardada la geeyo wadadaas ay u dhisanto aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. tan iyo markii madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu dhagax dhigay wadada isku xirta Ceeldaahir iyo magaalada Ceergaabo ayaa shacabka dowladda Puntland dal iyo dibadba ay si weyn ugu diyaar garoobayeen sida ay uga qayb qaadan lahaayeen wadadaasi oo muhiimad weyn ugu fadhida dalka. Cabdiqani Axmed Maxamed Cabdiqani Boos telefishinka caalamiga ee Royal Boosaaso. معهد فافنتا دينتا إسلامka ayaa muxaadaro wacyigelin ah maanta ku qabtay magaalada Gabiley waxaana dadkii ka soo qayb galay hayeen kuwa si weyn ugu qushuucayay muxaadarada ay dhageysanayeen
wariyaheena Sakariya Raage Ibrahim ayaa warbixintan inoo soo diray. maxadka fidinta diinta islaamka oo inta badan gobolada Soomaaliland ka fuliyo tababaro ku saabsan diinta islaamka ayaa sidoo kale maanta waxa uu tababar ku saabsan diinta islaamka ugu qabtay magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley in ka badan 200 oo qof. munaasabadani oo ka dhacday hotel Askar ee magaalada Gabiley ayaa waxa uu horeyn ka hadlay Xasan Cumar Xasan oo ka tirsan saraakiisha maxadka fidinta diinta islaamka. sidoo kale waxa isaguna halkaas ka hadlay wakiilka gobolka Gabiley u fadhiya maxadka fidinta diinta islaamka Sheekh Cabdiladiif Sheekh Maxamed Gaboobe waxaana hadaladoodii kamid ahaa nicmooyinka Ilaahay bixiyo nicmada ugu weynna waa islaamnimada nicmada ugu weyn ee Rabbi bixiyo waa islaamnimada nicmada inaynu garanaa horta leenooga baahan yahay inagoo islaam ah oo Ilaahay nicmada weyn nagu galladaystay oo aan nicmadii garanayno waa khasaar weeyaan horta Allah ina garansiiyo waxaynu haynaa Allah ina garansiiyo بعد جت إلهي نعموين كيس أو بحياة عترين كريسة ما جرته ليس النعمة ذوقين ونعمة الإسلام والإيمان الله ينقرسيه حتى إنه مد إسلام النهاي دوح على إنه جبه هي إسلام نمضين ينقم مقتل ما قاعد مشاغنون ما هي إسلام نمضين ينقم مقتل إنه جبه هي مركز وحن رجينا يا إن نورت إسلام نمضين نموجنا إنه كل دقنو دين تين إسلام فإن كل دقنو وعلى آله وصحبه وسلم marka ugu horeysa Ilaahay baa mahad Ilaahay halkan isugu keenay maanta inaga oo isfarayna waxay diintu ina fartay ee wanaag ah iskana reebayna wixii xumaanay diintu inaga reertay waxa macahadka iyo ujeedooyinkiisa iyo waxa ka hadlay Xasan baa ka hadlay waxaynu kolka maanta halkan sheegaynaa xafiiskeenan ama macahadka gobolka Gabiley kolka aynu ka hadlayno معهد دور جرب وقبتي كل ما نوعا أو كلا وقبل يكون قبتي وحقوين أي كل كلام معهد كوجدي سؤالته هاي واسيد دليرته أما هو بتكين السكر هي أي يرير أي هذا مستقبل كي وطن كأه سيدي لو وعي جن الهاوي وجدد وقوين معهد كينن وغشق يا وطن كينن نوحن أجنهي وبريهن شرته وقتياً دبش شرته in ubadkeennii kolkaynu eegno akhlaaqdoodii dhaqankoodii diintoodii intoodiiba in ay laga leexiyey ujeedadii diintu lahayd in ubadkeennii laga leexiyey ayaynu ognahay taasaa kolkaa ujeedada ugu weyn ee maxadkeenna uu ka shaqeeyaa waxay tahay sidii loo toosin lahaa ubadkeenna ujeedada xafladan maanta halkan la iskugu yeedhay waxaa soo qaban qaabiyey maxadka faafinta islaamka maxadka faafinta islaamku waa maxad Soomaaliland ka howlgala taqriiban imaka ilaa 8 sanadood iyuu ka shaqeynayay dhammaan gobolada Soomaaliland halkan gobolkan Gabileyna wuxuu ku leeyahay xafiis xaruntiisa guudna waxa weeyaan magaalada Hargeysa marka laga yimaado Soomaaliland xaruntiisa guud waxa weeyaan South Africa maxadkani shaqadiisu waxa weeyaan waa wanaag farista iyo xumaan reebista maxadkani had iyo jeer wuxuu dhalinyarada ama qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland ka wacyi galiya tahriibka waalidkaarnimada waalid caasiga macallin caasiga iyo falalkan haatan wadamada geeska Afrika ku soo kordhay isqarxinta wuxuu yiri اتق المحارم تكون اتق المحارم تكون عباد الناس حرام تمسك إلى دتك كوي عبادة بدون بطمريسة أو قف حلال عنكي لا وضع عدود وتكذا دي واحد كسر شيء وكبرني يا مجرد وحنا على حسابته ما نسي بلاص بين هذا ويس كوستان صومها وحقي ما نسك دنوبتي يا حارانتي حقي بلاص دوي ها ما حنقول هذا الدوحي من السنة عملنا من السنة صالح لقبني هذا بقى واحد قوسنا يا مجرد وقف حارانته ما بيسكيل عليه سدا أوجد عبادة بدن أو إلا هبين كي تهجد أو سوتش أو الحاران تسكي إلى لين لا مرح عدود تكذبني كوفر عليا يا كاسة إتاس كل عافية اتق المحارم وحول تكونها عبادة الناس تدك أوجو كوي عبادة بدن بدن قنا يساي حاران تسكي إلى لين وحكلولي اسكي إلى لين واحد اسكي إلى لين يعني أحسن إلى جارك وناج أحسن إلى جارك
takun mu'minan jaarkaaga wanaaji mu'min baad noqon balak xagii iimaanka mu'min haddii la yidhaahdo horta kelmaddan mu'min luqadda carabiga kuma jiri jirin baa la yidhi berigii hore oo muslim uu jiray carabiga oo haddii nin cadow qabto uu u hoggaansamo wuu isdhiibay dee weeye oo kelmaddan muslim macnaheedu ilahay baa isku dhiibay weeyaan dee ku cadow isku dhiibaa uu jiro oo erey bixintu iska jiraysa kolka horaba laakiin wax mu'min la yidhaahdaa kelmad mu'min diinteenay la socotay ilaahay baa mu'min inoo bixiyay Zakariya Nuux Ibraahim Royal TV Gabiley tobankii arday ee kaalimaha hore ka galay imtixaanka sanad dugsiyeedka gobolka Sool ayaa maanta hay'adda Keer waxa ay guddoonsiisay abaalmarino ay ugu tala gashay wariyaheena Maxamed Shaqale ayaa warbixintan inoo soo diray 10 hablood ee ugu sareeyay imtixaanaadka dugsiyada sare ee gobolka Sool ayaa maanta la guddoonsiiyay abaalmarin ay bixinaysay xafiiska hay'adda Keer ee gobolka Sool Ibraahim Xasan Bilow ah gudoomiyaha hay'adda Keer ee gobolka Sool ayaa ka hadlay abaalmarinta ay siiyeen ardaydan isagoo arrimahaas ka hadlayna waxa hadaladiisii ka mid ahaa maanta ujeedkan isku nimi horta mashruuc la yiraahdo horumarinta cilmiga oo booradiisa halkan ay ka muuqato mashruucaasi hadaan in yar ka soo bilaabo xilliga uu bilaabmay iyo waxa laga qabtay mashruucaasi wuxuu socday muddo 3 sano ah wuxuu ku eeg yahay bishan 10aad ee hadda soo socota 31keeda fayskiisii koowaad alxamdulillah fayskiisii labaad inaan bilownana waan jecelahay inta marka laga yimaado mashruucan wuxuu qabtay waxqabad fara badan oo isugu jira dhismayaal iskuulo cusub oo la dhisay iskuulo la kordhiyay arday gelinka dambe bilaash macallimiin loo qabtay oo ka yaro weynaado flexi time la yiraahdo oo aan u dhigno arday scholarship ah oo hablo oo aan awoodeynin in ay iska bixiyaan waalidiintooda ay ka bixiyaan oo iyagana aan fiiga ka bixino hablihiina fonforada ah qaybtii remedial classes ee waxbarashada gelinka dambe oo 6 bilood soconayay iyo kuwa kale oo badan ba uu qabtaa waxaanu kale oo qaybinaa wax allaale wixii agab waxbarasho iskuulada Duma Daahir iyo waliba Farduus ayaa ku macneeyay abaalmarintan mid dhiirigelin ah isla markaana loo baahan yahay in la dhiirigeliyo ardayda kaalimaha hore dugsiyada sare ka gala gudoomiyaha waxbarashada gobolka Sool ayaa dhankiisa u mahad celiyay hay'adda Keer oo abaalmarintan siisay hablaha sanadkan ugu sareeyay dhanka dhibcaha waxa soo yimi maanta ardaydii darajada sare keentay iskuulada degmada Laascaanood gudaheeda ku yaalay Muuse Yuusuf Ilays iyo Nugaal kuwaasoo A iyo B keenay iyadoo ay ardaydaas iyo B'da keentay ammaankeeda iyo sharafteeda in kasta aan dadaalay ay gabdhaha leedahay hay'adda Keer oo naga aqbashay inay gabdhaha aad wax ugu dhigto imika sawaad naga farxiseen Allah idinka farxiyo waxbarashada iyo dadaalkana halka ka sii wada inamaduna waxaan leeyahay tartanka joojinina waad arkaysaan hablihii inay idin soo gaadheen inamada fanfarradana waxaan leeyahay iyo waxbarashada tartanka yaa la joojinin aad iyo aad ayaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ayaan idinku mahad celinayaa waanan jeclaan lahaa inaad noqotaan tusaale dad badan oo gobolka ayaa idin higsanaya oo idin eeganaya ma sha Allah waxaan rajaynayaa inaan arki doono iyadoo meeshaan meel ka sii fiican la sii gaaro assalaamu calaykum waraxmatullah waxaa aad iyo aad aan maanta halkan ugu boorinayaa oo u soo istaagnay inaan uga marka hore inta ilaahay baa mahad leh inaan u mahad celiyo Keer International oo nagala qayb qaadatay soo bixitaanka A iyo B A plus B plus A minus B minus oo ah nambarada ugu sareeya gobolka Sool hogaamiyana ay u yihiin saddexda dugsi ee gobolka Sool hablaha dhigta oo ugu badan inay A keeneen ama B keeneen Rahmaan Rahiim waxaan ku bilaabayaa magacayga Farxaan Cumar waxaana ka tirsanahay ardayda sanadkan dhameysay dugsiga sare Muuse Yuusuf waxaan halkan uga mahadnaqayaa hay'adda Keer runtii hay'adda Keer waa hay'adda qura ee naga garab taagnayd markaanu ahayn ardada sanadkan dugsiga forforada waxbarasho dheeraada sida galabtii habeenkii xitaa waxayna siiyeen aqab aan waxbarashada ku jirin oo nagu caawiyeen khaasatan haweenka daan hay iskoolada sare ka baxay runtii waxaan mahadnaq siinayaa gabdhaha
kaalinta sare ee qaatay 3 iskool ee Laascaanood ilaa Nugaal iyo Muuse Yuusufba oo baxda gobolka Sool iyadoo awal ka tagi jirta waxbarashada ama aanba ogolayn marba imtixaan gaar qaadin xafiiska hay'adda keer ee gobolka Sool ayaa ka shaqeeyay dhiirigelinta dhanka waxbarashada gobolka Sool Maxamed Shaqalle Royal TV Laascaanood xaflad si weyn loo soo agaasimay isla markaasna lagu daahfuriyay sanad dugsiyeedka Salaama ayaa maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland waxaana munaasabadaas ka qayb galay wariyaheena Faysal Fifa oo warbixintaani inoogu soo diyaariyay munaasabadan dhicitaankeeda sida weyn loo soo yeeglalay isla markaana loo soo gimgimay looguna talagalay in abaarmarina tiro badan lagu guddoonsiyo ardaydii sanadkan kaalmaha hore ka galay imtixaanadii kala duwanaa ee laga qaaday ardayda wax ka barata dugsiyada Salaama soona qabanqaabiyeen maamulka iyo macallimiinta dugsiyadaasi kana soo qayb galeen xubno ka mid ah hoggaanka sare asxaabta siyaasadda golaha wasiirada xildhibaanada labada gole qaran ee guurtida iyo wakiilada salaadiin cuqaal duqeyti waxgarad iyo sidoo kale waalidiinta dhalay ardayda ka soo muuqday kaalmaha hore imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada Salaama ayaa lagu qabtay Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa ugu horeyna waxa goobtaasi ka hadlay Jaamac Biixi Muuse maamulaha guud ee dugsiyada Salaama isagoona faahfaahin ka bixiyay maraaxilkii dugsiyada Salaama soo mareen tan iyo laga soo bilaabo markii dhidibada loo taagay iyo sidoo kale marxaladda xilligan ay marayaan dugsiga Salaama wuxuu ka kooban yahay 8 qaybood waxa kale oo iskuulka Salaama leeyahay Salaama Secondary School oo isagu leh qaybta hablaha iyo qaybta inamada qaybta luqadaha iyo xisaabaadka qaybta kombiyuutarka oo lagu dhigto culumta kombiyuutarka qaybaheeda kala duwan iyo qaybta kaabista maadooyinka dugsiga sare dugsiga Salaama waxa uu raacaa manhajka wasaaradda waxbarashada waxaanu xiriir fiican oo wanaagsan oo dhow la leeyahay wasaaradda waxbarashada dhankooda waxa iyaguna goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga xaakimka kulmiye Muuse Biixi Cabdi wasiir ku-xigeenka waxbarashada xildhibaana ka socday labada gole qaran ee guurtida iyo wakiilada saraakiil sare oo ka socotay wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale maamulka macallimiinta iyo waalidiinta ardaydoodu wax ka barato dugsiyada Salaama ayaguna dhammaantood goobtaasi ka jeediyay erayo ku tacalluqa ahmiyadda waxbarashadu u leedahay da'yarta iyo doorka Salaama Schools ay kaga jiraan kobaca iyo koruqaadka aqoonta da'yarta dugsigan Salaama muddo yar ayuu furan yahay muddada yar ee uu furan yahay haddana waxa uu ka mid yahay ilaa 2 sano ugu dambeeyay dugsiyada kaalmaha la taaban karayo ee muuqda ka soo hooyay imtixaanka qaranka ardayda tihiin hadaa waalidka tihiin iyo hadaa macallimiinta tihiin sanadkan guulaha ka keenteen imtixaanada guulo badan oo kala waardiin rajaynayaa hambaliyo Salaama la yidhi aqoon markay la yimaadeen bay ummadana hoos tagtay marka walaalayaal saas oo kale nuugsan doonaa biidnillaahi tacaala Salaama waxaan idin shiraynayaa maamul wanaaga waxaan aad idigu mahambaliyeynaya tacliinta tayada leh insha Allah tacaala sidii ragiga horeeyay u sheegeen anu waxaan leeyahay intii uu ku amaanay agaasimaha waxbarashada gaarka loo leeyay ayaa ammaan ugu filan قال هلا إلى أول محاسوب برسي نيرس بان هذا دكتور كجو لبس هلا دكتور كبوشي laga helo ay laga baran lahaa in lagu dadaalo sameeyntooda waayo taasi waxay yareyn doontaa waxyaabo badan oo maanta aynu arkano oo inanka aan dugsiga sare ama tacliinta sare galay wuxuu gali karaa dugsigan farsamada oo maanta waxa aragtaa qaladeena leeydkaasi hadduu xumaado ma samaysan karayno marka waxaan u baahannahay dugsiyadii farsamada hadday tahay tii mekaaniga hadday tahay tii leydhka hadday tii maxaan ku dhahdaa wax badan oo farsamada gacanta ah oo la barto ayaa jira marka dugsiyadii farsamada in lagu dadaalo ayaan tagnay ingiriiska ayaan waxaan igala doortay qiso aad ii qiimo gelisay oo aan isiri malaa yacni nolosha intaan ku jiro aan gaaray munaasabadan ayaa ah mid dhiirigelin xooggan u ah da'yarta wax ka barata dugsiyada Salaama iyo sidoo kale da'yarta kale ee ku fogan sidii ay marun wax uga baran lahaayeen dugsiyadaasi waa Faysal Maxamed Aadan Faysal Fifa TV-ga caalamiga Royal magaalada Hargeysa
waa hagaag daawadayaal guud ahaan xilligani intaasi ayaanu jecel lahay inaan ku soo gabagabayno warkii oo si toos ugu daawanayseen TV-geena caalamiga ee Royal warkana waxa idila socodsiinaya anigoo ah Shaafici Sheekh Cali Honesty tan intaanu dib u kulmi doonaa warka mid lamid ah aniga oo ciyaartii kale ee warka igala qayb isku duuban waxa idin leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh